halka aad naga daawanaysaan waa SNN oo idinkaga imaanaya labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul. Alaaba waxaa naga daawataan aababkeena kala duwan ee kala ah Roku Boxka, Amazon Fire TV iyo telefoonada gacanta Android iyo iPhone-ka. Sidoo kale waxaad naga daawan kartaan ama iska rajiisgareyn kartaan website-keena somalinomadnetwork.com. waxyaabahan maanta idiin hayna waxaa ka mid ah niman dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo xabsiga loo taxaabay xatooyo badan oo ay sameeyeen awgeed. State of Minnesota khaasatan qaybta caafimaadka wasaaradda caafimaadka State of Minnesota ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso iscadeynta taasoo waayahanba aafo badan ku haysay dadka Soomaaliyeed khaasatan dumarka. maxaa ka soo kordhay barnaamijkii qalbi dhagax oo muddo laga aamusnaa ba waxa la gaaray waqtigii ay mudnayd in laga hadlo maxaas looga hadlayaa yaase hadallada bilaabay. qodobadaas ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa hadduu alla idmo. sidaad la socotaan maalmihii la soo dhaafay waxyaabaha ka dhacay State of Minnesota niman dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay xatooyo ka sameeyeen labada magaalo mataanaha iyo tuulooyinka ku hareeraysan kadib markii ay xadeen saacadaha gacanta ee loo yaqaano Apple Watch. wiilasha dhalinyarada ah waa laba wiil oo 22 jir ah. mid ka mid ah wiilashaas ayaa waxa uu degan yahay Eagan. wiilashaas ayaa muddo la baadi goobayay kadib markii la waayay meel ay jiraan iyo sidii loo raadinayay ayaa waxa soo ifbaxday in mid ka mid ah wiilasha hooyadiis laga helay Facebook-geedii xayeysiin uu ku xayeysiinayo saacadihii uu ka soo xaday dukaamada. kadib markii baaritaan dheer la sameeyay ayaa waxa la ogaaday la kulmay waalidkii ayaa waxa waalidku halka ka cadeeyay in Facebook-gan uusan lahayn qofka ku xayeysiinaya saacadaha. si kastaba ha ahaatee waalidku ama hooyadu waxay halkaasi soo bandhigtay in uu yahay qofka isticmaalaya Facebook-geeda wiilka iyadoo ay dhashay oo 20 jirka. balse markii la dabagalay la baaray wiilkaasi wiil kale la socday oo laga helay kaamaradaha qarsoon ee lagu waardiyeeyo dukaamada ayaa booliisku waxa ay garan waayeen qofka labaad oo asaguna la socday wiilkaas waxa ay siinayay. kadib waxa la kulmay waalidkii la weydiiyay bal inay garanayaan wiilka labaad oo asaguna Soomaaliga ah ee wax ka xaday saacadahan. kadib hooyadii oo garatay wiilkii kale wajigiisa ayaa waxa ay booliiska u sheegtay warbixin dheer oo laga qoray in wiilka kalena ay taqaano oo uu yahay wiilkeeda saaxiibkiis oo degan Minneapolis oo asaguna ladda ah wiilkeeda. meelaha ay wax ka xadeen ma ahan hal dukaan oo kaliya balse waxay ka xadeen dukaamo badan. waxa ay xadeenna waxay ahayd saacado aad u tiro badan oo qaali ah oo marka la qiimeeyo isku darkooda lagu qiimeeyay inay dhan tahay $20,000 Mareykanka. meelaha ay wiilashani ka kala xadeen baa waxaa ka mid ah Roosevelt oo ay ka xadeen magaalada Roosevelt oo ay ka xadeen 3 saacadood, halka ay St. Louis Park ka xadeen 2 saacadood, halka ay Brooklyn Park ka xadeen 4 saacadood, halka ay Minnetonka ka xadeen 3 saacadood, halka Maple Grove ka xadeen 4 saacadood, halka Golden Valley ay ka xadeen 4 saacadood. iyo magaalada wiilkii ugu horeeyo la qabtay uu deganaa ah Eagan, Minnesota oo asaguna ayadana laga xaday 9 saacadood. saacadahaasi muddo 3 bilood ayaa la baarayay cidda xadda iyo qaabka ay u xadaan, balse hadda waxaa lagu guuleystay in la helay labada wiil labadoodana loo dhaadhiciyay xabsiga ku yaala Hennepin County ee magaalada Minneapolis. haddii wiilashan lagu helo dambiyada ay galeen waxaa la saari doonaa ama lagu xukumi doonaa midka koobaad 10 sano xariga, midka labaadse waxaa lagu xukumi doonaa 5 sano xariga waa haddii lagu helo dambigaas. warbixin ay soo saartay
wasaaradda caafimaadka state Minnesota Department of Health ayaa waxaa baaritaan hal sano socday lagu sameeyay gabar reer Minnesota oo isticmaashay creamka loo yaqaano non care cream kaasoo gabadhaasi u isticmaalaysay isku cadayn ama isku qurxin. baaritaan dheer kadib ayaa waxaa laga helay gabadhaas cudurro aad u tiro badan oo u geystay creamkaas. cudurrada uu u geystay waxaa ka mid ahaa maqaarka, waxaa kaloo ka mid ahaa neerfaha, waxaa kaloo ka mid ahaa kaliyaha. sidoo kale waxyaabaha uu u geystay caafimaadkaas uu u geystay waxaa kaloo ka mid ahaa gariir, barar, walwal iyo inuu dhimirka wax u dhimay. baaritaankan la waday halka sano ayaa waxaa lagu wargeliyay dhammaan wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan klinikyada ama goobaha caafimaadka in la gaarsiiyo warbixintan si dadku ay uga fogaadaan creamkan inay isticmaalaan. iscadayntu aad u soo badanaysa awgeed ayaa waxaa soo batay dhib aad u tiro badan oo ay dumarku kala kulmaan iscadaynta. waxyaabaha aadka u soo kordhay waxaa ka mid ah inaysan dumarku qoraxda kulul ku socon karin, sidoo kale aysan karin karin cunooyinka guryaha iyo dhammaan meelaha kulul aysan geli karin, taasoo ay kaliftay isticmaalka Nuna Care iyo kareemooyinka kaloo la mid ah. dhammaan jaaliyadda iyo dadka iscadeeya waxay wasaaradda caafimaadku ku wargelinaysaa inay ka fogaadaan dhammaan waxyaabahan mercurygu ku jiro ama kiimikadu ku jirto, taasoo badankeed isu bedela kansarkaasoo dhibaato u keeni kara qofka markaasi marsanaya waxyaabahan hadda aanu soo sheegnay. Soomaaliya waxyaabahan idinku hayna waxaa ka mid ah qalbi dhagax waxaa laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaa la geeyey Muqdisho, waxaa loo saaray diyaarad Addis Ababa. qalbi dhagax wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed, sidoo kalena ka tirsanaa ururkii ONLF. ururkaasoo 30 sano u dambeeyay ka dagaalamayay dhulka Soomaalidu ay degto ee Ogaadenia ama Soomaali galbeed ninba sida u yaqaan. dhulkaas oo dadka Soomaaliyeed badankood ay aad u taageersanayeen ONLF-ta ayaa waxaa keentay in dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya in aysan ONLF-ta ka qaban jirin magaalada Muqdisho. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee qof Soomaaliya inta laga qabto Muqdisho loo geeyo Addis Ababa. arrintaas waxay ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaa laga soo qabtay Gaalkacyo sida uu Sambalosho sheegay oo ahaa wasiirka amniga ee waqtigaas ayaa wuxuu sheegay in ka soo qabashada laga soo qabtay qalbi dhagax magaalada Gaalkacyo in ay ahayd arrin uu asaga ku badbaadinayay, taasoo ula jeeday in ay ku tartamayeen in ay maamuladu ama Galmudug ama Puntland ay rabeen ayagu in ay wax raqiisa siistaan sida hadalka u dhigay. si kastaba ha timaadee qalbi dhagax waxaa la keenay magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo markay ka wada hadlaysay aan aad u tiro badnayn. golaha wasiirada ayaa waxa ay soo gudbiyeen warbixin ay kaga hadlayaan qalbi dhagax iyo ONLF.
arrintaasi waxay keentay in dowladda federaalku iyo golaha wasiiradu ay meel mariyaan in ururka ONLF lagu sheego inuu yahay argagixiso sidoo kalena qalbi dhagax inuu codsaday asagu in loo gudbiyo Ethiopia oo heshiis la yahay oo markaasi cover up u noqdo ama dabool u noqdo ay u noqoto dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas oo Cabdi Xaashi afkiisu ka sheegay gudoomiyaha sanadka Soomaaliya Cabdi Xaashi arrintaasi waxay maanta bilowday waji cusub waxa la gaaray waqtigii electionka ma qalbi dhagax ayaa wax iska bedeleen maxay hadda muxuu Cabdi Xaashi hadda uga hadlay oo uga hadli waayay waqtigii la soo dhaafay maxaa Sambaloshe ku kalifay inuu ka hadlo waqtigan maxaase wasiiradii kamid ahaa golihii wasiirada ee farmaajo markaas khayr kamid ahaa ay qaarkood u bilaabeen sida Juxa inuu maanta ka hadlo isku soo wada duubo xeritaankii ama geyntii ama afduubkii la afduubay qalbi dhagax ayaa waxay Soomaalida ku noqotay waji gabax aad u tiro badan iyo saameyn weyn oo ku ah ambaar ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxyaabaha hadda soo cadaaday oo ay dadka Soomaaliyeed dhagahooda ka maqlayaan waxa kamid ah khudbooyinkan bal nala dhageysta Cabdi Xaashi waxa uu ka yiri arrinta qalbi dhagax horta waxa weeye waa habeen taariikhda Soomaaliya ku yeelan karta nuqdo madow aniga waxaan maqlay maalinnimadii ayaan maqlay nin baa laga keenay Galkacyo area dhulka oo la keenay Xamar oo loo dhoofin la rabo in loo dhiibo Ethiopia ninka askari Soomaaliyeed buu ahaa sargaal buu ahaa dagaalkii 77 ragii galay buu ahaa marka aniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo nin Cabdirasaaq Juriil leeyra ayaa u nimid madaxweynaha waxaan nidhi warkaasaan maqalay ninkaas oo loo dhiiba Ethiopia waxa weeye dambiga ugu weyn ee dawladdeenu galayso waxaan waa kaaga digaynaa baan nidhi waayahay buu waa ka tagay 4 saac oo habeenimo ayuu ii yeeray madaxweynuhu yani kolkay tahay 10 fiidkii ayuu madaxweynuhu ii yeeray kolkuu ii yeeray inuu tagay telefoon buu diray wuxuu yiri Cabdi Xaashi yaa ila jooga noo kaale uu yimid wuxuu yiri u sheeg wixii aad ii sheegaysay wuxuu yiri ninkaas wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa yani madaxda sare ee jabhadii ONLF haddaan qalbi dhagaxay buu leeyahay buu yiri marka wuxuu yiri dadka badankiisii waa galeen anna heshiis baan la galay Ethiopia oo waxaan rabaa inaan anigu idhaahdo aan iskeeyo dawladda Soomaaliya cover baan ka rabaa inay ii noqoto oo ay geyso waxaan idhi ma isagaa yidhi Sambaloshaad weydiisay Sambaloshaan weydiinaya su'aasha suuye kolkaasuu yidhi kolkaasuu wuxuu ii soo saaray baasaboorkiisii waa kan fiisihiisi baa ugu yaalla yani waxa weeye annagu hadduuna igeeya odhanna ma geynayno de hadduu igeeya yidhaahdo isagoo codsigiisaas
arrinta ku adkaysta aniga hal bay dhaaftay habeenka ninka ii keen inaan idhaaho keen unbaa isaagtay intaasaa isay unbaa isaagtay habeenkaas ها marka hadii waxa aroortiina waa la dhoofiyey qalbi dhagax cabdi xaashi wuxuu hadda uga hadlay sababteeda ma la is oran karaa wuxuu ku difaacayaa farmaajo haddana bal nala dhagaysta Sambaloshe taliyihii sirdoonkaan ahay mas-uuliyaddeeda koowaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid a go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama oo u muuqdo mashruucan ama hadalkaanu musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldoweed adeer cabdi xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida cabdi xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaaw iyo dhamaat Sambaloshe uu saaray sida cabdi xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtiis horta aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha cabdi xaashi ugu la kulmay xagee ahayd yaasi joogay markuu ila kulmay qalbi dhagax markaas ka hor ma la dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala geliyay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ku soo baxay ayuu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameey waayay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyada oo Soomaaliyeedna talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rekoorka arrinkan inaan sadgalayo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kaleeto muxuu yahay horta sida malaa'ikta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican ahayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday haayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo ma maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ha ku hayso ama tuun ha ku haysee shaqadii horta dad soo qabasho waa hadda ka hor nabad sugidda aan joogay hadda ka hor qalbi dhagaxna magaalada joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar Allah jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leeyahay haysmana waa leeyahay markay timaado foreign policy-ga dawlad kaleeto iyo dawladda Soomaaliya wax dhex maraya horta aniga mas'uuliyaddaas ma leeyahay xukuumadan u dhisan madaxweyne leedahay ilaa ma kala dawladooda fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas'uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska iyo mas'uuliyaddaas ay keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraay ii sheeg mana dhiibay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka Soomaaliyeed haddii uusan is indhatireen wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa sidii wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas'uuliyadiisa ka gilgilanay maahay marka howlahan oo kale xasaasiga iyo xafiis xasaasiga aad ku dhex jirto go'aamo badan oo critical oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo public aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaan rabaa Soomaalina u sheego arrinkaas anigana igama bilaaban igumana dhamaan Sambaloshe qodobo badan ayuu kaga hadlay wareysigiisa kooban mar dadka Soomaaliyeed iyo qalbi dhagax wuxuu weydiistay in la cafiyo arintani waxaad moodaa
in Sambaloshe ay ku caddahay in uu ka dambeeyey qalbi dhagax iyo in loo gudbiyo dalka Itoobiya taasoo oo uu qirtay in Cabdi Xaashi waxa uu u sheegay ay run ahaayeen inuu baasaboor u soo sameeyey inuu madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi ku qanciyay in ninkani uu Itoobiya la heshiiyey oo Itoobiya heshiisa uu u wado qalbi dhagax Itoobiya sidoo kale wuxuu qariyay in cid kale aysan hawshani wax kala ogeyn oo hadda ay moodo in ay hawshu ku soo ururtay asaga balse wasiir Juxa oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka hadlay arrinta qalbi dhagax Juxa muxuu ka yiri bal nala dhageysto dooddu markay 2 saac socotay 2 saac markay dooddu socotay oo dhinac walba waxa laga rooyay oo qofba waxyay yiri oo dadku badanaaba isku raacsanaayeen ninkaan sida uu Sambaloshe iyo golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha soo bandhigay uu yahay dadna si kale ay uga doodeen oo aniga Maryam Qaasim aan ka mid nahay baa waxa la yiri baa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka halka waxa ugu jirtay warqad daraafti ah oo soo qoray waxa aanu doodayno anagu moogtahay waxa lama hor dhigin mawduucan baa afkana oo ka sheegay doodii markay dhamaatay warqadda la soo saaray waxa la yiri haye warqadan waxa idin akhrinaya go'aankii mahdi baa soo saaray ra'iisul wasaare khayr waa dhinac fadhiya mahdi baa akhriyay markuu akhriyay buu yiri hal codeeyo waxaan ku reer maxaa laga doodiyay 2 saac loo fadhiyay وأنت واحد يسوي ويديني. مركب قان كان ورقة كوكريا صوصاري. قان كواحد تدبري وأنت واحد كويري أي واحد كوتشرتي سيل غيّلا. طبعا هي سوى سارة يوم دحوينا كحيان كي واحد بيجعنت وده كوتشرتي. أنت ماشى كسب بحد واحد ويا قلها وسير هذا مركب لو أركي ماشى إن ورقة الله مريون. قان كوال الجاري. أنت فرها أي كب حظي. سيرعيدهم بالور هذين يجي. طبعا قان للسوق جاري. أي قلها وسير هذا الله كان مركب دوت الدمات. بس على الدود يجي. أي ورقة أنا سو أخري تسأل سأل كحيان كأخري هلا عدياني طبعا كل ما حكوا عدياني إني بحالكي كذولي ما قدم هل كومو صورة قل ما هني اللي قبل واحد كسوات الحديد يا واحد كسول عسكري طبعا نعود كبار القليل صدوا هذا مثل لا صعب على هذا يعني مرة قاسبات ديدي أنا واقع مصري تان أضغط ضوضي مع كأمصي أمارنا واقع مصري صدق لي ذا أنا وسير هذه أمار وضع مستين وعمصني مرة ويديد هذه أنت كان وضع عليس أنت كان مسؤول راعين طبعا يريسوا بلا يراخي وورك كسب بحي ماشي اللي أخي كومنيكي كدعي كلها وزيرة ضادر كدب وحال جاري وقتي العديني إن لو عديه إن لو شيء أركا حق دركا أو ينلف إن أيهين أرجعيسو أرنتاس أو جحا aad uga gilgishay asaga iyo wasiir kalena ay ka aamuseen balse arintaa waxaan ka aamusin hadal cadna ka jeedisay meesha sida uu Juxa umada u sheegay Dr. Maryam Qaasim oo ah wasiirkii hore ee gargaarka iyo masiibooyinka Maryam waa aqoon-yahanad Soomaaliyeed waxay ka mid tahay wasiirada farakutiriska ah oo ay dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay dalka u tagtay inay wax ka qabato halkaas oo ay ka cadaysay inaysan taageersanayn ama ay ku codaysay maya in qalbi dhabax aan loo dhiibin iyo waliba in aan ONLF laga dhigin urur argagixiso gabadhaasi waxay mudan tahay bila sharaf dadka Soomaaliyeedna waxay u muujisay in ay qadiyad iyo sharaf ay ku dhimanayso arintaasi waxay maanta gilgishay dhammaan daafaha dunida waa markii ugu horeysay oo arintaasi si public ah loo sheego oo dadka Soomaaliyeed u ogaadaan maxaa xigi doona waraysiyadan arintan ma arrin campaign ba arintan ma arrin wax raba in lagu saxaa arintan dadka kala hadlaya dadna waa dad ka tirsan maamulka dawladda
oo ugu horeeyo sanad xaashi cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha sanadka iyo niman dowladda hore ka tirsanaan jiray sida juxa iyo sambaloshe oo hadda isu bedelay inay mucaarad yihiin kadib khudbado badan oo ay jeediyeen. isku soo wada duubo haddii juxa iyo sambaloshe iyo cabdi xaashi ka hadleen, goormay ka hadli doonaan khayre iyo farmaajo? mase laga yaabaa in khayre iyo farmaajo ay ummadda Soomaaliyeed ka dalbadaan in dambiga ay ka galeen ee cafis weydiistaan? mase laga yaabaa sidoo kale inay cafis weydiistaan qalbi dhagax oo ay dambi ka galeen? maxay tahay aamusnaanta ay mas-uuliyiintaasi ka aamusan yihiin dambigaas ku cad in dowladdii ay madaxda ka ahaayeen ay dambigaasi gashay? isku soo wada duubo dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan in khayre iyo farmaajo ay warkooda ka caddeeyaan iyo dareenkooda arrinta qalbi dhagax, iyadoo dadka Soomaaliyeed laga dhiibi jiray gobollada ama ay dhiibi jireen qabaa'iladu ama ay dhiibi jireen maamul goboleedyadu. tan waxay kaga duwan tahay oo ay dadka Soomaaliyeed u raadinayaan in jawaabo cadcad la siiyo. waa caasimadii dalka, waa madaxweynihii dalka, waa prime ministerkii dalka, waa golihii wasiirada, waa golihii baarlamaanka, waa golihii sanadka oo jooga. ayaa caasimada Muqdisho inta laga qaaday muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxaa la geeyey caasimad kale oo markaas cadow ahayd oo loo arkayay in baqdin ay ka baqayaan in loo geeyey. waxyaabihii Sambaloshe afkiisa ka soo baxa waxaa ka mid ahaa Sambaloshe inuu ugu tagay qalbi dhagax, uu ugu tagay xabsiga asagoo ula hadlay in aan adiga ku dhiibno iyo in ay dowladda iyo dalku burburaan baa noo dooroon, marka qalbi dhagaxow inaan adiga ku dhiibno baa noo fudud. aragnay qalbi dhagax wareysyadiisii iyo qaabkii wax u dhaceen, dadka Soomaaliyeed arkeen qaabka Sambaloshe qaabka u hadlay cabdi xaashi oo nadiif ka ahayd oo sida daacadnimada ay ka muuqatay. aragnay sida Sambaloshe oo aan isku aadanayn waxa uu ka hadlayay uu dhigay, balse uu cadeeyay wixii cabdi xaashi uu sheegay inay sax ahaayeen. sidoo kale juxa oo golihii wasiirada ka mid ahaa wuxuu cadeeyay in isaguna meeshii lagu codeeyay oo NLF lagu sheegay inay argagixiso tahay oo uu ka aamusay, balse wasiirad Maryan Qaasim ay ku codeysay maya. maxaa xigi doona? waxaan sugnaaba waa waqtiga ay hadli doonaan farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo xasan cali khayre oo ah prime ministerka dalka Soomaaliya. waxaan rajaynaynaa in ay arrintaasi si dhab ah ay uga hadli doonaan. waxaan rajaynaynaa in ay dadka Soomaaliyeed iyo qalbi dhagax iyo NLF ba ay ka codsadaan in ay weydiistaan cafis, qirtaanna dowladdii ay madaxda u ahaayeen inay dambigaas gashay. waa anigoo ah Maxamed Wardheere, waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.